mahadsanid waxaa lagu qabtay xaflad aad u weyn magaalada Manchester oo ku taala waqooyiga waddanka Ingiriiska. xafladan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bahda isboortiga ee ku kala nool boqortooyada waddanka Ingiriiska. kulankan oo looga hadlay sidii loo horumarin lahaa isboortiga Soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha waxaa soo agaasimay jaaliyadda isboortiga ee Greater Manchester iyadoo ay ka soo qayb galeen marti sharaf ka kala timid magaalooyinka boqortooyadan Ingiriiska. ugu horeyntii waxaa ku soo dhaweeyay magaalada Manchester marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladan gudoomiyaha guddiga marjaca isboortiga Sharif Zeno. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horeyntii aan soo dhaweeyo bahweynta isboortiga ee nooga timid London iyo meelaha kale. waxaan leeyahay ku soo dhawaada Manchester oo ah magaalo ku caan ah sida noo sheegay Axmed isboortiga ama isboortiga. waxaan kale rabaa inaan mahad celiyo guddiga ama ururka isboortiga Manchester oo caawa qabteen xafladan caawa halka lagu qabsaday oo annagana aan adnahay guddiga marjaca aan ka soo qayb galnay. waxaa kaloo is-araggan lagu taageeray wiilasha kubadda kolayga ee qaranka Soomaaliya iyo doorashadii guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ee ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaa kaloo hadal ka soo jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladan oo ka kala yimid magaalooyinka London, Leicester, Birmingham, Bolton iyo Liverpool. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaamka bacdi horta mahadnaq waxaan u mahad celinayaa maaragtay xafladan aad u qurux badan dadka walaalaha ee lagu casuumay ayadoo markii ka horreysay si kama ama si kadisa ay noogu yimaadeen magaalada London oo annagoo kooban aanu yacni maaragtay ku soo dhaweynay ballanqaadna aan u soo binnay inaan maxaan ilaahay idinkiis mid aan imaano Manchester ay nagu casuumeen odayaasha marjaca fariin ay nooga keeneen daraadeed inaan u nimid. horta aniga anoo ku hadlaya magaca ururka midaynta qurbajoogta oo 3 sano socday isla markaana maanta ururkii uu soo bedelay ururka horumarinta isboortiska ee Soomaaliyeed annagoo yacni tala ahaan ama ra'yi ahaan wixii howlo aan qabanay intaba hadda wax la taaban kara ay yihiin oo aan u maray dhul badan sida Afrika iyo Asia iyo Europa intaba waxa kaliya aan gaaray shanta continent waxa ka jirta Australia meesha la dhahayo ayada iyo New Zealand waxaan rajaynaynaa ayadana sidoo kale tamidaan maxaan ilaahay si gaarsiinay ilaahay idinkiis inay noqoto. waxaa mahad weyn loo ah inaan ka soo qayb galnay xaflad isboortis ee lagu casuumeen guddiga marna walaalaha Soomaaliya wax garabka isugu jiraan macallimiin oo aad u jeclaaday wada maamul ayaa yar wax loo qabanay. maanta markaan arkay ciyaalkii yaray oo waddanka markii Manchester ay soo badiyeen 6-1 aniga markaan soo galnay magaaladan macalinka ugu horreeyay aan suraysan wuxuu ahaa Maxamed Faarax oo ah macalinkoodii ciyaalkii yaray ee ku soo badiyeen 6-1 xaddidan ay istaagtay kaas ciyaalkii maanta Soomaaliya iyo macallin Soomaaliya iyo koox Soomaaliya oo ka badiyay koox kale oo cadaan ah oo waddanka u dhashay oo wax qof damiir leh maaragtay oo ka damqanayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaantiin waan salaamintihiin dadka martida oo noo yimid iyo jaaliyadda reer Manchester dhammaanteed jaaliyadda Greater Manchester sorry iyo marti sharafka nooga timid magaalada London. marka ugu horeyso soo dhaweyntii iyo hadalkii iyo kulli maaragtay kulli waa la wada hadlay alxamdulillah. annaga maanta aad aan faraxsanahay maadaama uu nala joogaan guddigii maaragtay midaynta qurba joogta guddigii seeraada isboortiga kale dadkii tabinaya maaragtay ciyaarihii maaragtay Universal TV qaybta isboortiga biriq iyo Zola iyo saaxiibkiis Somali Channel cameraman Afi Yaasir kulli dhammaan waa mahadsantiin idinkana waa idin salaameynaa haddaan nahay reer Manchester maaragtay caawa annaga ma soo koobi karna farxadeena maxaa jira maadaama annaga aan la kulannay dadkii qurba joogta magaalada London howlaha fara badan ka hayay maadaama caawa ay meeshan wada joogaan maaragtay aad ayaan u faraxsanahay. Assalaamu calaykum magacayga waa Cabdifataax Sawayne macallin waxa uu ah nabadda FC iyo ururka muxuu ahaa horumarinta isboortiska
sportska marka la horumarinayo waxa loo baahan yahay macallimiin badan midda hadda maanta uu nimaanay muxuu ah Manchesterna waxa ugu weyn oo aan la socdo ururka waxay tahay macallimiinta Manchester inaan la hadlo oo aan xiriir wada yeelano ciyaartooyda fiican oo ka soo baxdana qaranka Soomaaliya la geeyo waa salaamtiin runtii Manchester waa heerka ay marayaan maanta reer Manchester baaweynta sportiga waa garagartaan sida kaliya aan u wada shaqeyno wax qabadkooda iyo waxaad garagartaan sida kaliya ay wax u qabtaan intaas oo qofooda meel kasta ka timid adduunyada maanta Great Britain maanta ay joogaan magaalada Manchester caawana maxaan ka markaati furayaa ururkii hore oo mideynta oo hadda isu bedelay horumarinta in howl badan uu soo qabtay taas maxaan ku sii darayaa qoladan Manchester qolo walba waxa ay tahay in la sheego ayuu waajibka yahay annaga reer Manchester maxaan u naqaanaa hooyada sportiska oo UK taas aan u naqaanaa عبد الناصر إسماعيل Universal TV Manchester